iyadoo maalintii shalay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu daahfuray bilowga ololaha talaalka isla markaana bulshada ugu baaqay in laga qayb galo ololaha talaalka dabaysha oo ka bilaabmay Soomaaliland guud ahaanba ayaa maanta magaalada Burco dalada unit ee u qaabilsan wasaaradda caafimaadka wacyigelinta talaalka dabaysha waxay qabatay munaasabad ballaaran oo ay ku soo martay qaaday guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ka hadlay gudoomiyaha dalada unit Saynab Yuusuf Cadi kusimaha barasaabka gobolka Togdheer isla markaana barasaabka xigeenka Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxlay suduwaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdi Yaasin Xaaji Salebaan iyo saraakiilka socotay hay'adaha WHO iyo UNICEF annagu haddaanu nahay qolada wacyigelinta waxaan u sheegaynaa dadweynaha inuu bilaabay barnaamijkii talaalku dabaysha dhammaan dadka qofka dhashay ilaa iyo qofka u weyn talaalkaas maanta la talaalayo maadaama ay noqotay booliyadii wax soo laga kacleeyay oo ku soo noqday adduunka baaqaandiraya wuxuu yahay dhammaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer sidii ubadka ay u talaali lahaayeen loo siin lahaa booliyada si loo iyo dadka waayeelkaaba si looga badbaado aafa qaran oo ay nagu keentay inuu habsataa gobolkana waxa galay tiinos 350 group soconaya oo meel walba jooga oo kala qaybsan gobolada Sheikh Ahmed Khalil Al-Husari oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in uu ka mid yahay cudurka dabayshu waxyaabaha naftiisa saameynta ku yeeshay anigu horena waan u tilmaamayo dhibaatada uu bahalkani leeyahay oo ka hortag uu leh anigoo caruur sanad ano ka yar taabta inta halka fadhida dhibaatooyinka aan kala kulmay iyo fuquuqa aan kala kulmay dad badan baa runtii ugu xoogaalsan ololahan caafimaadka ayaa waxa ka qayb qaadanaya tiimam ka badan 300 oo kooxood oo ay hagayso wasaaradda caafimaadku kuwaas oo laga fulinayo deegaamada ku yaala magaalada Burco Oodweyne iyo Buuhoodle waxaana uu noqonayaa mid ka duwan guud ahaanba talaaladii hore maadaama ay ka qayb galayaan caruurta iyo dadka waaweynba waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco